daawadayaal hadda waxaa barbarkayga ku sugan xogayaha xiriirka gobolada iyo degmooyinka ee xisbiga mucaaradka ee wadani Maxamed Cabdilaahi Jaamac Booq oo aan ka wareysan doono xaaladda guud ee dalku haatan ku sugan yahay iyo ismaandhaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka sidoo kale xogayuhu waxaan ka wareysan doonaa oo aan wax ka weydiin doonaa xanuunka xumadda ee magaalada soo galay iyo sidoo kale xeerka ee ansixinta caasimadda magaalada ee Hargeysa oo lagu xiray gobolnimada Gabiley ugu horreyn waa ku soo dhaweynaya xogaye ku soo dhaw telefishinka Sam News bal arrimahaasi waxaan doonayaa inaad nooga waranto oo aan wareysi kala yeelno bismillaahir rahmaanir rahiim waan dhowhay aad baan soo dhaweynayaa Sam News waana ku mahadsantahay booqashada soo booqatay waan soo dhaweynayaa haddaan xogaye su'aal ka weydiiyo هذا وضعك waxa uu ku jira xaalad siyaasadeed oo cakiran inkasta oo madaxweynaha iyo xukuumaddiisa golaha guurtida Soomaaliland ay maalmihii u dambeeyay muddo kordhin u sameeyeen isla markaasina xisbiyada mucaaradka ay muddo kordhintaasi qaadaceen isla markaasina ay ka soo horjeesteen idinka xisbi ahaan maxay idinka meel yaala 13 November ee runaantii lagu calcaliyay oo xisbiyada mucaaradku ku abaabuleen oo lagu calcaliyay bal arintaasi maxaad kaga jawaabaysaan maxaad ka aragtidaada ku aadan muddo kordhintaasi horta muddo kordhintu waxay noqotay xanuun bar ku taala dimuqraadiyadda Soomaaliland ay noqotay markaynu eegno dastuurkeena iyo waxyaabaha uu ka dhigayo muddo kordhinta qodobka saxiixiisreed sheegay ee dastuurka farqadiisa shanaad haddii ay suurtoobi weydo doorasho duruufo la xiriira nabadgelyada darteed in la qabto madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waxa golaha guurtida ku waajibay inay muddada xilka u kordhiyaan intaas iyo dastuurkeenu ku dhigaya maantana nabadgelyo darro iyo wax toona laakiin waxay noqotay wax la iskaga darsado labada sano wax la iskaga darsado madaxweyne kasta oo waddanka yimaada ku darsado inaynu dastuurkeena bedelo halkaynu 5 sano ku qorannay aynu 7 sano ku qoranno ayaa malaha ka qurux badneed badee kol haddii madaxweyne kasta uu doonayo in 2 sano lagu daro markaad eegto wax sharciya iyo waxaan lagu kordhiyay midna ma mid kale wada siyoogtiin maanta oo mushkilada kale dhacday guurtideeni iyadoo horta xeerkii doorashadeed iyadoo aanu wali la keeninba 6 sano ayay doorashadu iyadana u dhigayaa in sanad ay ka dambayso baarlamaanka 5 sano iyaga bay isku kordhiyay maanta 5 sano maxaynu wax ka doorno kala 5 sano isku kordhi karno inaynu waxna madaxweynaha intaynu u sabaysano maalin bicid baa leh oo aynu dooranno ayuu malaha ku qorxmantay markaasi muddo kordhintaasi oo waxa la caadeysto sharci ahayn saniyati ma wax sharciya iyo waxyaabaha dastuurkeenu u dhigayo marka kaliya u dhigaya marka nabadgelyo la'aan ma jirto maanta Soomaaliland ma lagu sheegay waa maya wax la caadeysto muddo kordhintaasi waxa tiri haddii ay doorasho ay dhici weydo waxaan iga qorshaysan xisbi ahaan waxaad ogtahay maanta 13 November ayaa laga rabay madaxweynaha inuu qabto doorashadii madaxtinimada madaxweynuhu ilaa intaa wuxuu la meereysanayay oo la wareegaysanayay waxay haydun in xisbiyada qaranka muddadii iyo waqtigii ay dhaafto ilaa markii commissionka isqabqabsigiisii iyo kala diristiisii iyo wixiisii oo dhanba waayahay maantana waynu garan karnaa 13 November doorasho madaxtooyo oo la qabanayo oo loogu talagalay ma jirto markii ay soo saareen commissionku tii ugu dhaweyd xidhay waxaanu ku qaban karnaa 9 bilood 9 bilood aynu ku qaban karnaa halka waa ku kala baxay guli guurtida iyaguna 2 sano ku gujiyay haddaynu 13 November gaadhoorta madaxweynaha looma aqoonsanin madaxweyne sharciya markasta oo waxaan way jiri jireen kordhinta laakiin waxay ku yimin jirtay wada hadal iyo isogolaasho ay ku yimin jirtay xisbiyada guurtida xukuumadda inta la wada hadlo sidaynu xog qaban karnaa maxaa la isweydiiyay muddadii iyadoo la isla ogoliyay inta jeereed ee doorashada la kordhiyayba qaladkii doontaa noqotay waxay ku yimin jirtay wax la isla ogoliyay laakiin maanta madaxweynuhu jujuubiyo iyadoon wala xisbi wax ka weydiiyay wala cid kale wax ka weydiiyay ayuu kororsiimo 2 sano ay ugu gujiyeen halka adduunkii maanta wuu ogyahay
in dalkii dimuqraadiyadda ee weliba curdinka ay soo koriyay aan ahayn dal aan la aqoonsan aan ahayn in maanta aan jirin wax dimuqraadiyad la yiraahdo ay ka jirto wax dictatornimo la yiraahdo waqtiga madaxweynaha la doortay markuu dhamaado aan soo golaashana aanu ku iman waqtigii madaxweynaha kale ee nuuridinta aanu soo golaasho ku iman halka waxa ka cad inuu jujuubiyo xoog u yahay waxa la isla ogol ma aqoonsanin uma aqoonsanin bay ka dhigantay markaa 30 November anti gadho way in badan baa lagu calaaliyay 13 November adiguna adiga yiri madaxweynuhu ma aqoonsanin inuu si ahaan doono Muuse Biixi Cabdi marka maxay uga dhigan tahay Soomaaliland marka madaxweyne labaad baa la dooranaya miya may madaxweyne labaad dooran mayno taasiyo madaxweyne labaad baa la dooranaya halkan qoran maayo laakiinse shan sano aynu naqaanayn madaxweynaha dooranay haddii xaaladan dastuurku u dhigaya aanay jirin oo sababo kale oo weliba xukuumaddu inta ugu badan u sababahayd in muddadii ay dhaafto ama ha noqoto commission la kala diro wixii waa inuu ku yimaadaa isoo golaasho xisbiyadii iyo xukuumaddii markaa jirtay waa inuu ku yimaadaa haddii aanay jirin waxay noqonaysaa waxaan la isla ogolayn halkaa waxaynu ku soo gaadhnayna is ogolaansho iyo waxaynu isla ogolahay baynu ku soo gaadhnay haddii laakiinse joojoob ay noqoto waxaynu dictatornimo bay ka dhigantay macnaheedu way xogaye haddii su'aal kale aan ka weydiiyo guud ahaan dalka Soomaaliland waxa si baan ugu faafaya xanuunka xumada oo dad badan ragaadiyay dad badanna u jiifaan sida dad badanna ay dhinteen oo dhakhaatiirtu sheegeen wasaaradda caafimaadku weli kama hawlgelin iyo dhinacii xukuumadda bal arrintaasi xisbi ahaan maxay ka qorshaysan ee idinka meel yaala inaanay weli xukuumaddu aanay dhag jala qusin dadka dhimanaya ee la sheegay inay xumadu dilayso horta waxaanay wax xanuun ka jira laakiin si xanuun ka jira adduunka maanta uu dhaafay in wasaaradda caafimaadku si official ay u soo saarto xanuunkaasi oo adduunka aynu maanta dhahno xanuunkaasi waa xanuun dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan na saameeyay si degdeg ah wixii noqoto caafimaadka in la gaarsiyo la yiraahdo waxaynu u baahanahay gurmad degdeg ah waayo dareemi kartaa maanta way naga xoog batay intii aynu qarsan karaynay intii aynu eegayna way dhaaftay maanta ilaa ibtullah waxa ka imanaya waxa ugu badan la sheegay waxa kan qof qaniinta qaba oo adigana ku qaniinta laakiinse shaybaar lagu sameeyay caamaho xanuunkaasi wuxuu yahay la gartay oo xukuumaddeenu soo saartay habeeraatay ma jirto anuna waxaan aaminsanahay wixii Taiwan aynu ka soo qaadanay berigii dhawdii nagu riday ee uu dadka ku riday in wixii aynu xanuunka ka qaadanay aaminsanahay baanu xanuun xal loo weel kala markaa xal wax loo xukuumadda saartay wasaaradda caafimaadka iyo saaranto wana ku sheego way dhaaftay bartii aynu qarsan karnay si official intay u sheegto xukuumaddu hana la soo baadho xanuunkan oo wuxuu yahay kaneeca laga qaadaya kaneeca qaniinta laakiin muxuu yidii xanuunkan magaciim wuxuu ka imanaya fayraskiisu waa noocee ilaabta noo mahaynadii waa xukuumaddu way ka gaabisay waa tahay haddii aan su'aal kale ka weydiiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maalmo dhaweyd wuxuu kormeer ku tagay gobolada galbeedka iyo barigaba Gabiile buu yimiday dadkii la kulmay waxay weydiinayeen gobolnimada Gabiile haddii aan su'aal waa tahay xogaye haddii aan su'aal kale ka weydiiyo xogaye madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu safar shaqo ku yimid magaalada Gabiile wuxuu la kulmay dhalinyaro iyo haldoor kale waxaana laga weydiiyay waxa hortaagan gobolnimada Gabiile isaguna waxa uu sheegay in xeerka caasimadda marka la ansixiyo ay gobolnimada Gabiile ay tahay mid banaanka taala oo la ansixin karo isla markaasina ay ka xukuumad ahaan ka diyaar tahay arrintaasi bal xogaye maxaad kaga jawaabaysaa horta gobolnimada Gabiile markaynu eegno xeer 2019 shuruudaha lagu magacaabi karo gobol ama degmo kriteeriyada lagu magacaabi karo gobol ama degmo waxa waajib inuu yeesho shuruudahan baaxadda dhulka ay ku fadhido miisaaniyadda iyo baaxadda dadweynaha wax soo saarka iyo kheyraadka dabiiciga ay leedahay isku filaanshaha iyo hanashada adeegyada arrimaha bulshada waa inay degmadu isku filaan kartaa 60% miisaaniyaddeeda ayo afartaas qodob horta xeer ku dhigaya afarta qodob ayuu marka la magacaabayo gobol
inuu gobolkaasi intaa noqon karo afarta qodob fulin karo afarta qodobna inuu garanayno inuu fulin wasaaradda xukuumadda laga rabaa wasaaradda arrimaha gudaha inay soo dhigtay u soo gudmiso baarlamaankii iyaday tahay hawsheedii iyo shaqadeedii ilaahay naxariistee in cigal markii gobolka saaxil uu magacaabay عاصمة مرتجح وقت السنة دي قبل الصحيح دي مو عاصمة حير عاصمة لنا لقمة حرين وحكى لنا لقمة حرين إن تاسي يدو وتاسو أفرتها قدب اللوجة بعين أفرتها قدبنا ويفلسي دي قبيلة لكن سوى حوي حرك عاصمة ده وشيء مدحوينه مركا عاصمة دي حير كي يلا دما يستروان قد يربود ولي به أيها الفلين دونا بيدي maxay inooga caasimada inooga gobolkaynu doonana oo gobol qabiil la yiraahdo waxay xukuumi doontaa gobolkii Maroodijeex intii hoos sameysay maadaama caasimada xirka caasimada la sameeyay imika waxaan halkan ku haynaa muxuu ahaa qabiyo qoraal xeekii laftiisa halkan ku haynaa madaxweynuhu wuxuu sheegay markaynu eegno iyo waxa xeerka qabiyo qoraalka ku qoran isma markaynu eegno imika waxa ku qoran markaynu eegno qabiyo qoraalkan qodobka 8 kala soocidda magaalada madaxda iyo gobolka Maroodijeex qodobka labaad xarunta gobolka Maroodijeex waxay si ahaanaysaa magaalada madaxda Hargeysa waxaana ka simid ahaan doona gobolka Maroodijeex degmooyinkiisa iyo tuulooyinkiisa hore uga mid ahaa gobolka Maroodijeex marka laga reebo ismaamulka magaalada madaxda ee ku xusan farqada koowaad halka waxay nooga cad in ay sii ahaanayso labadiiba caasimadii iyo gobolnimadii Maroodijeexba inay sii ahaanayso ayuu qabiyo qoraalkani sheegaya wax allaala wax inaga xidhna oo gobolka Maroodijeex dii caasimadii kaga xidhan gobolka Maroodijeex qabiil kaga xidhan haba yaraatee ma jirto laakiin madaxweynuhu uu ka wareegaysanaya halkana wixii dib inoo sheegay lahaa xeerka caasimada marka la ansixiyo iyada hoos iman doonaan gobolkii Maroodijeex caasimadu noqon doonta Hargeysa waka xeerka qabiyo qoraalka waka nooca sheegaya haba si ahaato reegibil iyagunba sacabka iska garaaca markaynu eegno reegibil iyagunba sacabka iska garaaca madaxweynahan markaynu eegno ficilada iyo taa ugu dambeysay maalinta dhaweytoolada gobolnimada la weydiinayay markaynu eegno maalin kaliya gobolkan irbadu dunu galiyay aynu oran karnaa habeeraatay ma jirto anu gobolkan ma rabo ma jeclan laakiin dadkan waliba dhalinyartu maanta boqolkiiba 70 way faahsantii oo qabiiladii iyo cunfiga iyo wixii loogu sheekayn jiray way faahsantii kulmiyana iyo muusana waxay ka dheeleen ama ay ka way faahsan laakiin waa dadkii waaweynaa ee qabiilada iyo waxaan ku miday boqolkiiba 30 bayna maanta kii laakiin waxaan sheegaya dadka laftooda aanu sheegaya war madaxweyne Muuse ma jecla gobolkan Gabiley way hadaynu soo qaadano anu waxa kamid odogta Hargeysa golo deegaan bala doortay isbedel baa ka muuqda maayarka caasimada isbedel buu muujiyay anu ogolaasho la'aanta madaxweyne Muuse inaanu ogolay waxba ka koowa eerde maayarnimada iyo gobolka cid u xiray oo waliba 6 gobol ee Soomaaliland Gabiley awgeed hay sababta loogu xiray ودكتي إربطوا لما قلنا سنة دي اسمه مرة سمح أنتي يقولها دينا الدورتي إربطوا لما قلنا وحكى الله كمدا حيابا بدنا مركين نجنا تاريخي هوري ما أنتي كلابير لحد حري أبرسو حد حري مدحوني دي بري هوري وقلاش الآن تانو قبل كنا قليلو بكرة جبتي لكيسي ده كان هي قبلي أنا ما قرنا يدي ولي dadka waaweyn boqolkiiba 30 ka dhigan in dhalinyartu way fahantii sabab ay Muuse maanta u jeclaadaan ama gobolkan faa'iido ay ku qabaan haba yaraatee ma jirto dadkana qabiilad waa laga koray maxay noo faa'iidayeen wixii ka soo dhacsan karnaa ayaynu weydiin karnaa yay noo gol ayaynu maanta ku gorgortamana intii aan noo ogolayna shuruudaha fulin banaankaas inuu ka marnatay لكيس صعب بينا يقول شأن إنترس لحين دي أدري وين ديني يلمين
horta dadka aan waxba daraasaynayan iska maangaabka iyo waxa iskaga sheekeeya hadaynu soo qaadano laba miisaaniyadooda u dambeeyo miisaaniyadii qarankana miisaaniyadii tan ka horeysay waxa ugu jiraan filaya dugsi muxuu ahaa dugsi ku yaalay tuuladii magaceedu galmo iyo bariish ko waliba laba miisaaniyadood ku kala jiray ayaa ugu jiray marka la eego miisaaniyadaha Somaliland dee qorin dee eega gobolkan waxa ugu jira haday iyadu ugu yaraan weydo waxay sheegayaan barnadii way hadaa dadkan taabacsan ee sidii weyn u taageersan ee Gabiley markuu imaado madaxweynuhu ama ku soo fool leeyahay dadka badan ee tirada badan ee soo baxaya maxay horta berigii hore doorashadii 2017kii baashan dee ilaahay dadkan uu ku beeray qabyaalada bay waayeen meel ay uga baraan Muuse ma jecleen horta Muuse bay jecleen oo dee beel malaha kale uga kacaale oo dee reer bay waayeen oo way iskaga qasbanay laakiin maanta kuma qasbana dhalinyartu way fahmeen gobolkan inaanu Muuse ogolayn inaanu dan kala hayn way fahmeen laakiin waxay noqonaysaa maanta inta dadka waaweyn inaynu wacyi gelino oo wariyaynu danteenu ku jirtaa war 10 sano soo socota gobolkan ninka soo jeeda wuxuu noo dhigay wallahi inaanu wadanka haweysanayno madax ka noqdo 10 sano hadayna ka badnayn 15 sano soo socda cid haweysan mayso gobolkan inuu madax wadanka inuu maamul ka noqdo isagaana noo dhigay way xogay hadii uu Muuse nacib yahay Gabiley dadku maxay ku jecel yihiin haatan أنا كل بقول كيف اللي إحنا اللي يرتم أنت ما أقوله حكومة واد قرنيسة حكومة مركز شفتوا وضن هي هاي سطو اللي يرتم أنت أما عكسقيان هاي ده الدولة جاهة أما سكرها وشقيان أما وحوين إنه نود كني شغوين بوران أو ده برايف ولا أول كشقيان من شفتوا وحير نوالبو السجور أركي وح إن عن الصحين in sidoo u shaqeynay shaqadanu ku yimid saxaanayn in waxa maanta uu qaatay ee shaqadiisaasi uu ku qaato aanay saxayn haddana waxa jira in la yar gaabsanayo qodobka labaad kale waxa weeyaan wabahasha inagu yar mudan ee aynu step by step ugu soo yarbaxaynay dadkeeni weyneed ku hadhay laakiin maanta ogolaasho sidii berigii hore aynu ogoleen adayga marxaatiina loo ogoleen dhalinyarta boqolkiiba su'aal kale hadaan ka weydiiyo madaxweynuhu markuu halkan joogay xogay wuxuu ka hadlay wartaale oo sheegay in dad u baahan tahay daacada oo u shaqeeya bal arintaasi maxaa kaaga baxay muddadan daacadahayn baa jooga muddadan mas'uuliyad qaadi karin baa wartaale jooga oo xaqraday inay ka sameeyaan adeegyadii baahiyaha asaasiga maadaama oo ay tahay magaalo ganacsiyeed horta wayku xukuumadda iyadu madaxweynihiisa isagu isdhaliilo horta wayku inaka maayarka ama maamulka ka jira muxuu ahaa wajale ma maamul xisbi kala soo magacooday mise maamul dawlad kala soo magacooday maamul xukuumadda soo magacooday hadduu dhaliilayo isaga soo magacaabay wasaaraddiisa arrimaha gudaha haddaanu u qalmin inuu meesha hay'adda oonu karayn laakiin inuu TV ka sheego in qof u qalmin oo joogo muxuu ahaa degmadaasi deecaabay ku tahay isagu ma isdaliilay cidii magacaabun buu dhaliilay in dee ka soo bedel haddaanay ahayn wasaaraddiisu magacooda qof kasban kara xilka loo magacaabay haddaanu ahayn yaa magacaabay kale wadani baa magacooday xogay dadka reer Wajaale waa ka cabanayaan cabashadaas gaarle madaxweynaha ma loodan karaa haddii laga cabanayo ciidan loo cawdina waa madaxweynaha cidda soo magacaawdana waa madaxweynaha ciidan xukuumadii oo wasaaradda arrimaha gudaha dayuun yaa maynaga soo bedela haddaan waajibaadkiisa shaqo ka adkayn maynaga soo bedelina dee isaga magacaabay xukuumadda ciidii ku jirtay adigu soo magacaawday dhaliil oo waliba media ka dhaliil waxa ka mid tahay waxa signoornimada wax la fahmi karaa ugu dambeyn xogayaha abaabulka iyo isku xidhka gobolada iyo degmooyinka xisbiga Macaarid maxaa taleed u soo jeedinaysaa xukuumadda iyo sidoo kale ee aad adigu talahan aad ku talinaysaa inay xukuumaddu fuliso isla markaasina laga tago iyo tanka iyo sidoo kale fikrada kala duwan ee lagu baahinayo baraha bulshada horta hadaynu u baahannahay inaynu horumar gaarno oo wadankeena aynu sharci ku shaqeeyo horta
sharciga waa inuu shaqeeyaa waxaynu dhiganay waa inuu shaqeeyaa qodobka labaad waxa weeyaan waa in horta baarlamaanka waxaa ku codsanayaa muxuu ahaa inay soo diyaariyaan muxuu ahaa xeerkii doorashada golaha guurtida halka inala daadegtay ee dhaxalka noqotay oo guurtida waa in xeerkii guurtidan wasiirada lagu soo dooran lahaana waa in la keenaa sharciguna dee aynu dhiganayna waa inuu shaqeeyaa haddii waxyaabaha aynu dhiganay iyo sharciga uu shaqeeyana waynu horumar ayaynu ku talaabsan doonaa haddii kale oo maalinba maalin aynu ku tumanno wixii aynu dhiganay dibudhac iyo kala dambayn la'aan iyo digtaytarnimo unbaa ka dhalan doonta mid kalena way jirtaa gabay hadraawiilhaaba waxaa ku jirtay garmaqaatayaashiiyo dadkaa beeray ruux guran war haddaynu sacabinoon oynu sacabkun garaacno hadhow toonana markuu qofku meel aynaan qaban karin uu yimaado aynu nidhaahno waa sidee war waxaan hore aynu u soo aragnay saynu sacabka u garaacaynay aynu maalin aynu gaadhnay meel aan laga qaban karin haddii muuse aynu sharciga ku soo celin weyno oo aynu reernimo iyo qabyaal iyo kale lagu taageero maalin aan la qaban karin ayaa iman doonta war sharciga aynu ku soo celinno aynu sacabkan iyo waxaan aan la fahmi karin haddii la weydiiyo maxaa maanta aad ku taageeraysaan ama maxaad ku ogashiin aan la fahmi karin cid ka jawaabaysaani jirin waraynu joojino inaan abuurin inagu dictatorka gacantayna inaan ku abuurin haddaynu ku abuuranayna hadhow ka caban ugu dambeyn xogaye waxaan ku weydiinayaa waxaa jira sidoo kale dad fara badan oo abaartii saamaysay dhoweyd roob badanna aan helin haddana jiilaalkii baa la gelaya arrintaasi ka xisbi ahaan maxaad ku talinasaan ee tala ahaan maadaama dalkiina wax soo saar hagaagsan aan lahayn xisbil xaakimka talada dalka hayaana uu ku ololeeyay wax soo saarka dhinaca beeraha inuu xoogga saari doono markuu talada ku guulaysto taladii waa ku guulaystay wax soo saarna lama hayo arrintaasi ma bedeli kartaan haddii xisbigiinan macaaridku aad timaadaan horta waxyaaba uu ku ololeeyay muuse 10 qodob oo ahaa ajandayaasha uu ku ololeeyay waxaan anigu ku leeyahay maanta hal qodob oo ka fulay haddii 10 qodob la soo qaado waxaa ka mid ahaa in xorriyatul qowlka waxaa ka mid ahaa in dhulka aynu beeri doono inuu kala soo bixi doono waxaa ka mid ahaa adoo haddaynu soo hal qodob oo waa laga fuliyay aynu odhan karnaa haba yaraatee 10 qodob dee ma jirto waddada allay baday ballanqaadiyadiisii bay ku jirtay ii sheegeen waddadii kale yadda maxay ahaydeen balligubad leh dee waxyaabihii ballanqaadka waqtigii muuse doorashada uu doonayay markaynu eegno 20% kabay fulin 80% baa losa waayahay dee waxay ka mid tahay uun marka caalamka adduunka wax lagu xisaabtamo oo la yidhaahdo xisbigaas wuu fashilmay isaga iscasiladii markuu waxyaabihii u ballan qaaday ay shaqayn weydo isaga iscasila laakiinse dee halkan lagama dheelo in uu fuli weyday iyo wixii uu ballan qaaday iyo cid ku xisaabtantay iyo cid kula xisaabtantay toona ma jirto iyo cid u weydiisay toona ma jirto waa huu haada iyo sacabka marane hadhow toolun la baraarugi doono marka waynu ognahay inaan waxaas fulin laakiinse anagu xisbi ahaan dee hadday waxbarasho noqoto hadday caafimaad noqoto hadday dhammaan ayaa asaasiga noqoto dee waxaanu samaynay oonu ka leenahay mabaadii iyo qorshe aanu soo bandhignay dee waananu insha allah imika maadaama doorashooyinkii bilaabi doonaan dee waanan loo soo bandhigi doonaa dee in lagula xisaabtamanu jecel lahay ee in loo aamuso oo haddaanu wax ka fulin weyno in sidaa muusoo sacabkana loo garaaco annagu ma rabnee wixii aanu nidhaahnaynu ku xisaab aanu nidhaahno maanta haddii xog ka suurtoobi waayeen waxaan u baahanay waxaanu sheegaynaa joogan in la yidhaahdo dee wixii aad sheegayseen waxba kama jiraan taasaan anugu leeyahay halkaasaan qof kasta anugu maanta mihi haddii ay insha allah aynu ku guulaysano oo dee anugu ma arkayo sawirkeygii iyo doorasho waddankan la qaban doono dambe ma arkaye hadday dhacdo laakiinse aynu ku guulaysanayno alla bay dee horta waa qayb ku xidhantay laakiinse sida 99% filayo in xisbiga waddani maanta uu ku guulaysanayo hadday doorasho la qabto yaan aaminsanay 99% yaan aaminsanay waxaan jeclahay inaan lagula xisaabtamo waxaanu dhahno in beri toole aan loo aamusin anoo maxamed cabdilaahiya haddii waxaan ku gallo doorashada iyo aanu soo bandhigna hadday fuli waayaan ninka ugu horreeyay farta ka tagayana ugu
ugu dambeyn ummadda ku daawan doonta iyo shacbiga kala duwan ee ku taageera maxaad soo jeedinaysaa ku dhaafsa waxaan ku dhaafayaa war aynu ka baxno shacabkan iyo dictatorkan aynu abuurano haddaynu nahay shacabkii inaga abuurna ama qabyaalada aynu ku taageerno ama aynu wax kale ku taageerno waxaan leeyahay war aynu u soo noqono horumarka iyo sharciga aynu u soo noqono oo yeynaan noqonin dad caamiya oo la jiheeyo oo aan waxaan jirin loo sheego yeynaan noqonin waxaan rabaa oon kula talinayaa war aynu la xisaabtano oo xukuumad kastoo timaada aynu la xisaabtano oo waxay tiri aynu kula xisaabtano oo yeynaan maanta dhalinyartu sidii hore maaha waa dad aqoon-yahanaha waa dad waxbartay waryeynaan noqonin in keeni xagga dambe aynu marin lahayn inuu noo taliyeynaan noqonin aynu noqono dad hanle wax doonta wax raba wax ku soo kordhiya waddankan